bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa xogwada janal waxaad ku soo dhowaataan qaybtii afraad ee sheekadii laga qoray afgembigii dhucusoobe ee waddanka turkiga haddaba maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa cabsima laga qabay afgembiga ka hor inta uusan u dhicin taariikhda dalka turkiga afgembiga kuma cusba gaar ahaan kontonkii sano ee u dambeeyey oo dalkaasi ka dhaceen afgembiyo militari ah oo xukunka waxaana ka mid ahaa ujeeddooyin la xidhiidha dhinaca aragtida islaamiga iyo cilmaaniyadda sidaa awgeed tan iyo markii xukunka dalka turkiga uu qabtay xisbiga cadaaladda iyo horumarka oo aragti islaami qunyar socod ah aaminsan waxaa si joogta u soo noqnoqonayay dareenka ah in ciidamadu aynan u dulqaadan doonin oo uu afgembi dhaca lama huraan yahay sida la og yahay ciidamada turkiga waxay isu dhigaan waardiyaha nidaamka calmaaniyadda ee ay dowladda turkiga ku dhisneed intii ka dambaysay dowladdii turkiga casriga ah oo u dhisay mustafa kamaal ataturk nidaamkaas calmaaniga oo weliba mararka qaarkood ahaa xagjir la dagaalamaya dhammaan calaamadaha muujin kara muslimnimo sida madaxa oo dumarka asturtaan iyo gedhka oo lala baxaa gaar ahaan marka la joogo meelaha dadku wada leeyahay sida jaamacadaha iyo guud ahaan goobaha waxbarashada telefishinada iyo xafiisyada dowladda doorashooyinkii sanadkii kii oo cod aqlabiyad weyn ah uu talada turkiga ku qabsaday xisbigii islaamiga ah ee daryeelka ayaa markii uu xisbiga muddo hal sana ah hogaaminayey xukuumad wadaaga waxa ay ciidamada soo saareen talooyin iyo soo jeedin awood amaro leh oo ay xukuumadda ku qasbaneed inay aqbasho waxaa ka mid ahaa in ra-iisul wasaarihii lagu tirinayey inuu aragti islaamiga qabo ee najmuddiin erbakan la ogolaysiiyey in ardada la marsiiyo barnaamij waxbarasho oo 8 sano ah si looga hortago in ardada la geeyo dugsiyada diinta islaamka lagu baro in jaamacadaha laga mamnuuco in habluhu ay timaha asturtaan iyo tallaabooyin la mid ah oo aakhirkii ra-iisul wasaare najmuddiin erbakan qasab kaga dhigay inuu iscasilo markii uu xilka hal sano oo keliya hayay islamarkiiba waxa ay sannaddii kii ciidamadu albaabada isugu dhufteen xisbigii islaamiga ah ee daryeelka maxkamadda ayaana ra-iisul wasaare erbakan ku riday xukun siyaasadda in uu galo ama ku lug yeesho 5 sano ka mamnuucayey maadaama uu askarta sidaas yeeshay xilligaas uu xisbiga islaamiga ah talada qabtay oo weliba xukuumadda ay ku jiraan xisbiyo aan islaami ahayn oo hogaaminayey waxa ay qof kasta gelinaysay aaminsanaanta ah in markaan islaamiyiintu qunyar socodka ah askartu ka ogolaan doonin in dalku ku hogaamiyaan xisbi aragti islaamiya leh oo weliba talada keli ku ah waxaase ka sii darneed in ragga abuuray hoggaankani u haya xisbiga talada hadda haya ee cadaaladda iyo horumarinta uu ka mid yahay rajab tayyib erdogan ay markii hore ka mid ahaayeen xisbigaasi talada cadaadiska lagaga wareejiyey oo markii xisbiga la mamnuucay ay sameeyeen xisbiga hadda talada haya waxaa iyadana aan la ilaabin xaqiiqda taariikhiga ah ee muujinaysay colaadda u dhexaysay erdogan iyo dadkii xambaarsan fikirka calmaaniga oo u arkayey inuu yahay hogaamiye tamar iyo hal adeeg badan oo haddii uu fursad helo taabaqaad kaga dhigi kara fikirkiisa islaamiga siyaasiga ah tusaale ahaan sannadkii kii ayaa maalin bishii Diseembar ka mid ah uu erdogan meel fagaaraha kaga hadlayey waxaa dhacay in hadalkiisa xujo uu uga dhigay ama uu ku soo halqabsaday judciyo ka mid ah gabay uu lahaa diyaa kowg alb oo ahaa gabiyaa siyaasi iyo waddani taariikh dalkaasi loogu yaqaano aabbihii waddaniyadda turkiga laakiin maadaama uu aragtidiisu ay u janjeedhay dhinaca islaamka aadna ula dhacsanaa axdigii dowladda islaamka ee cusmaaniyiinta aanay jeclayn kooxihii markaa awoodda badnaa ee calmaanigu inkastoo uu erdogan ku doodayey in gabigani yahay mid ay wasaaradda waxbarashada ee dalka ogoleed buwaagta manhajkana lagu qoray haddana maxkamaddu waxa ay ku eedaysay inuu fidno diineed iyo nacayb abuurayey aakhirkiina waxay ku xukuntay xabsi iyo in aanu 5 sano siyaasadda ka qaybgelin taasoo sabab u ahayd inuu ka hadho doorashooyinkii baarlamaanka ee xisbigiisu talada ku qabsaday erdogan waxa uu xukunkan xabsiga ugu jiray 4 bilood uu u dhexaysay maarso kii ilaa dabayaaqadii julaay isla sanadkaas waxaana loo diiday inuu sii wato xilkii duqonnimada ee uu 4 sano ka hayay magaalada istanbul sidoo kale erdogan waxaa mar kasta u colaad qabay garsoorka turkiga oo maadaama oo waxdani ay xilligaasi si macalinimo ah ugu dhaqmaysay mabaadi'da calmaaniyadda ee dastuurka dalka soo ragay aaminsanaydna in cid kasta ama xisbi kasta
oo aragti ama siyaasad calmaaniyadda ka wacsan xambaarsani khatar ku tahay. dabcan mudane Erdogan waxa uu ahaa siyaasiyiintii u muuqday in si gaara loo beegsanayay, iyada oo laga yaabo in sababaha ay ka mid ahayd aragtidiisa islaamiga oo calmaaniyiinta warwar ku haysay, waana tii keentay in xisbiyo Erdogan ku jiro la xidho, sida xisbiga aynu kor ku soo xusnay iyo xisbigii Fasleed oo isagana siyaasiyiinta aragtida islaamiga leh ee uu Erdogan ka mid yahay laga xidhay sanadkii 2001 laguna eedeeyey inuu meel kaga dhacay dastuurkii calmaaniga ah. waxa uuna ahaa xisbigii afraad ee aragti islaamiga leh ee 30 sano gudahood la xidho. waxaana xusid mudan in haweeney lagu magacaabo Marwa Safaaqa Waqti oo ahayd gabadha keliya ee iyada oo madaxa Masar u saaran yahay ku guuleysatay doorashadii baarlamaanka kana tirsaneed xisbigii Fasleed, iyadoo markiiba maxkamaddu amartay inay Masar ka tuurto. markii ay diidane ay soo saartay maamuuska xayuubin ah oo lagaga saaray xubinnimadii baarlamaanka, isla markaana laga qaaday jinsiyadii dalka Turkiga ee u dhalatay, dibaddana loo musaafuriyey. xitaa sanadkii 2008 uu Erdogan iyo xisbigiisii dalka hogaaminayeen, haddana maxkamaddu dastuuriga ee dalka Turkiga waxa ay eegtay dacwad ka dhan ahayd xisbiga talada hadda haya ee AKP cadaaladda iyo horumarka oo dalbanaysay in xisbiga la xidho. inkastoo markaan xukunka maxkamadda ka soo baxay aanu amrin in la xidho xisbiga, haddana waxa ay soo saartay xukun ciqaabeed 17 xubnood oo kaadiriinta xisbiga AKP ahaa muddo 5 sanaha siyaasadda looga mamnuucay, waxaana arrinta xisbiga ku waayey 50% dhaqaalihii uu sharci ahaan dowladda kaga heli jiray. arrimahaasi aynu soo sheegnay oo dhammi waxa ay abuurayeen tan iyo markii uu xukunka dalku qabtay Erdogan uu qof kastu niyadda ku hayo suurtagalnimada in xukunka ay xoog kaga tuuraan ciidamada dalkaas. xitaa warbaahinno kala duwan iyo dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa marar badan ku celceliyey arrintani. madaxweyne Erdogan qudhiisu muddo ka hor afgembigii u dambeeyey ayaa uu ka digay suurtagalnimada in afgembi military uu dalkiisa ka dhaco, waana sababta sannadahan dambe ay xukuumaddiisu isugu hawshay in ay ciidamada qalabka sida iyo booliskaba ka nadiifiso dadyowga ay u aragto in ay ka soo horjeedaan xisbiga cadaaladda iyo horumarinta. 30kii bishii sanaad ee 2016 ayaa warsidaha caanka ee Foreign Policy ka soo baxa Mareykanka waxa uu qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay afgembiga military ee Turkiga ku soo socda. maqalkaas waxay majaladu kaga hadashay waxa ay ugu yeedhay xaaladaha ka jira gudaha Turkiga oo ay sheegtay in Erdogan ay fursad u siiyeen in xukunkiisa uu maro nidaam ku dhow kalitalisnimo, abuurtayna in dad badani ay aaminaanba in Erdogan uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay Turkiga casriga ah ee awooday inuu cudiyaha kaga guro ciidamada dalkaas. laakiin sida uu maqaalkani ku doodayay runta aanan ahayn sidaas, balse sababta Erdogan ciidamada ugu aamuseen ay ku timid heshiis nabadeed iyo isfahanada uu Erdogan sameeyey, taasina ay fursad u siisay inay korto awooddiisa xukun ee dalka gudihiisa iyo in uu cagaha u qutamiyo siyaasaddiisa dibadda. Foreign Policy waxa uu ku doodayaa in siyaasaddaasi uu sheegay in Erdogan uu qaatay ee ah in ciidanka uu siiyo awoodda iyo madax bannaani ee iyaguna u oggolaadaan wada noolaashiyo ay Erdogan khatar ku tahay. waxaa jira dad ka tirsan kuwa ka agdhow Erdogan oo iyagu ka cabsi qaba in shabeelka ciidamada uu Erdogan doonayo inuu fuula uu maanta sidii hore ka sii bahalsan yahay, argoosina u ooman yahay, waayo waxa ay janaalada ciidamadu u arkaan in aanay geyin habdhaqanka ay kala kulmeen madaxweyne Erdogan oo aad uga duwan kii ay ugu barteen hogaamiyaashii siyaasadda ee isaga ka horreeyay. cadow doonaya inuu ka fogeeyo masraxa lagaga arrimiyo aayaha siyaasadda ee dalka. arrimahaasi aynu soo xusnay oo la isku daray ayaa uu warsidaha Foreign Policy u daliishanayaa suurtagalnimada in afgembi military ku soo fool lahaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. kale waxa uu tilmaamayaa dhirbaaxada kulul ee ciidamada Turkiga kala kulmaan Erdogan iyo dowladdiisa intii ka dambeysay sanadii 2007 oo ah markii uu dhacay wixii lagu magacaabay afgembigii elektarooniga. marka la isku soo aruuriyo wararkan iyo inta badan qoraalada laga sameeyay xaaladaha siyaasiga ah ee Turkiga, waxaa soo baxaya xaqiiqda ah in afgembigii uu ku soo wajahnaa Turkiga. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii afraad ee sheekadii laga qoray afgembigii dhicisoobay ee waddanka Turkiga. dib intaan u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.